السلام عليكم كسو دواada saaxiibayaal qaybtii labaad ee webiga Niil isha Niilka buluuga ah waa harada Tana ee gobolka Geesh-Abaay ee Buuraleyda Itoobiya isha Niilka cad xitaa qarniyo badan oo saameynta kadib ayaa weli lagu muransan yahay isha ugu fog ee aan lagu murmi karin waa isha webiga Kagera si kastaba ha ahaatee Kagera waxay leedahay biyo xireenno u tartamaya isha ugu fog ee Niilka cad labo ka bilaabma Burundi webiga Rufirenso oo sidoo kale loo yaqaan Lofirenso iyo webiga Rurubo inta waxaa dheer 2010 xaflad sahminta oo ka dhacday Rwanda ayaa lagu soo bandhigay meel lagu tilmaamay inay tahay isha marinka Rukara ayaa laga sameeyay biyo mareenno galaya kaymaha dusha sare ee kiiloomitro badan kuwaas oo siinaya ila cusub ee biyaha webiga Niilka Uganda Niilka cad ee Uganda Niilka cad wuxuu ka tagayaa harada Victoria ee Rift Valley ee u dhow Jinja Uganda sida Niilka Victoria waxa uu ka galaa waqooyi ilaa 130 kilomitir ilaa harada Kagoya qaybta ugu dambaysa qiyaastii 200 kilomitir qaybta webiga waxay ka bilaabmaysaa xeebaha galbeed ee harada waxayna ku qulqulaan marka hore galbeedka ilaa koonfurta Masindi Port halkaas oo webigu u leexdo waqooyiga kadibna wuxuu sameeyaa wareeg weyn oo qaybta bari ah ilaa laga gaaro biyo dhacyada Karuma Falls qaybta soo hartay waxay si galbeed ugu socotaa biyo dhacyada Murchison Falls ilaa ay ka gaarto xeebaha waqooyi ee harada Alberta halkaas oo ay ka samayso dhul webi oo muhiim ah harada Alberta waxay ku taalaa xuduudda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo laakiin webiga Niil xilligan ma ahan webi xuduud ah kadib marka uu ka tago harada Alberta webigu wuxuu u socdaa waqooyiga ilaa Uganda waxaana loo yaqaanaa Alberta Niil koonfurta Suudaan webiga Niilka cad ayaa ku qulqula koonfurta dhanka Suudaan ilaa dhanka koonfureed ee xigta Nimula halkaas oo loo yaqaan Bahr al-Jabal dhanka koonfureed ee magaalada ayaa ah halka ay ku kulmaan webiyaasha Ajwa iyo Bahr Ghazal oo dhererkoodu dhan yahay 716 kilomitir oo dherer ah waxaana ku biiraa Bahr al-Jabal oo ku taala laag yar kaas oo la yiraahdo Lake Non kadib webiga Niil waxaa loo yaqaanaa Bahr al-Abeed ama Niilka cad oo ka soo jeeda dhoobada cad ee ku xiran biyaha marka webiga Niil ku soo fataho wuxuu ka tagaa kayd dhoobo oo qani ah kaas oo bacrimiya ciidda webiga Niilku kuma fataho Masar tan iyo markii la dhammaystiray biyo xireenka Aswan 1970 sidoo kale webiga Ana Branch ayaa ka soo qulqula qaybta Niil ee Bahr al-Jabal oo dib ugu biira webiga Niilka cad heerka socodka Bahr al-Jabal ee Mongola waa mid joogto ah sanadka oo dhan waxaana celcelis ahaan dhan yahay 1048 mitir kuyub biyo ah Mongola dabadii Bahr al-Jabal waxay gashaa dhiiqada weyn ee gobolka Sud in ka badan kala bar biyaha webiga Niil ayaa ku luma dhiiqada si ay u imbaxaan ama u neefsadaan
celceliska heerka socodka webiga niilka cad ayaa ka dambeeya dhiiqada, waana ilaa 510 mitir cubic. halkan wuxuu la kulmaa webiga Sobat. sidoo kale webiga cad ee Malacca waxa uu ka qayb qaataa 15% wadarta guud ee webiga niilka. celceliska socodka webiga cad ee Kawaakib Malacca ee ka hooseeya webiga Sobat waa 924 mitir cubic biyo ah. socodka ugu sareeya waa qiyaastii 1218 mitir cubic biyo ah. bisha October socodka ugu yarna waa 609 mitir cubic ilaa laga gaarayo bisha April. isbeddelkan waxaa sababay kala duwanaanshaha la taaban karo ee socodka webiga Sobat, kaas oo leh socodka ugu yar ee qiyaastii 99 mitir cubic bisha Maarso iyo socodka ugu sareeya ee ka badan 680 mitir cubic bisha October. inta lagu jiro xilliga qalalan ee Janaayo ilaa bisha Juun, niilka cad waxa uu wax ka taraa inta u dhaxaysa 70 ilaa 90% wadarta qoyaanka webiga Niil. dhanka dalka Suudaan, webiga niilka cad ayaa soo gala Suudaan waxaana ku qulqulaa waqooyi ilaa caasimadda Khartoum, waxaana ku darsamaa niilka buluugga ah. wadada webiga Niil ee Suudaan waa mid gaar ah. waxay u qulqulaysaa in ka badan 6 kooxood oo laamo yaryar ah, laga bilaabo tillixaad ee Sabaloogka ee waqooyi ka xigta Khartoum ilaa Abu Hamad. kor u qaadista tiknikeed ee Nubian Swell waxay dhan u leexisaa webiga koonfurta galbeed in ka badan 300 kilomitir, iyadoo raacaysa qaab dhismeedka aagbiyoodka bartamaha Afrika oo soo dhaweynaya lama deegaanka Bayuuta. intaas kadib waxay dib u bilaabaysaa dhaqaajinta dhanka waqooyi ee biyo-xireenka Aswan. waqooyiga Suudaan, webigu wuxuu galaa harada Nasser oo sidoo kale loo yaqaan harada Nubia. qaybta ugu weyn waxay ku taalaa Masar, meel joog ahaan ka hooseyso biyo-xireenka Aswan oo ku yaal xadka waqooyi ee harada Nasser. webiga Niil wuxuu dib u bilaabaa u socoshada waqooyiga caasimadda Masar ee Qaahira. webiga Niilka wuxuu u kala baxaa 2 laamood, kuwaas oo quudiya badda Mediterranean-ka, laanta Rosetta ee galbeedka iyo laanta Damietta oo bari ah. la soco qaybta 3 ee webiga Niil. mahadsanid.